magacaygu waxaa la dhahaa Faarax waxa ahay immigration lawyer ahay waxa ka shaqeeyaa office-ka oo downtown-ka marka immigration waxa jiro programs badan jirto oo sida dadka oo legally wadanka u imaan karaan marka waxa ka mid ah ninaca oo waxa ka mid ah ninaca immigration iyo ninaca oo refugee ninaca immigration-ka sida loo imaan karo waxa la dhahaa there are different program mid waxa waaye express entry la dhaho express entry-gana waxa waaye waxay fiirinayaan education-kaada fiirinayaan schoolka inta sanadood schoolka tagtay experience-kaada age-ka da'daaday fiirinayaan iyo profession-kaada fiirinayaan marka waxaasay fiirinayaan marka waxay sameeyaan wax oo point system la dhaho calculation ay sameynayaan oo points ah marka karaafay leeyihiin so each waxa waaye each of the programs express entry-ga there's minimum number of points points-kaas inaa heshid waaye si oo ay ku siiyaan invitation ku imaatid marka express entry-gaasaa jirto waxaa jirto sponsorship wax la dhaho oo family sponsorship haddii oo xaaskaada intu joogo oo xaaskaada hadduu yahay permanent resident ama citizen hadduu yahay waxay ku imaan karaan marka sponsorship taasna waxay qaadataa about 6 months meelaas sida kalena oo lagu imaan karana ninaca oo refugee-ga qofka hadduu refugee yahay oo waddan kala degan oo haysto refugee card wax la dhaho that's issued by either or UN-ka siiyeen ama waddanka kale ay joogaan ay siiyaan waxay ku imaan karaan sponsorship wax la dhaho G5 group of 5 sponsorship ay jirto oo 5 qof oo Canadian ama permanent resident oo Canada degan ayaa sponsor garan karo qofkaas ay lacag ay isku dari karaan ama hadday shaqeeyaan waxaa loo baahan inuu 3 qof inuu ka shaqeeyo groupkaas markaas way apply garan karaan markaas sidaas uu qofkaas uu imaan karaan laakiin way isbedela markasta programs cusub imaado hadda mid kale cusub imaanayo program cusub oo December 2019 ka imaanayo oo ku xisaabsan immigration-ka oo dadka oo agriculture-ka dadka oo experience ku leh oo meat processor for example that want everyone inay ka shaqeeyaan meel oo meat processing factories meel halal meat stores there's avenue for them to come as well so programs aad u badan jiro xoogaa waqtiga waa very short waxay qaadanaysaa saacado badan in ka hadlo programskaas waa hadda ku sheegay kuwa waxa waaye kuwa oo main ones-ka waaye kuwa oo common ones-ka laakiin kuwa kala badanna waa jiraan oo kala duwan waxaan kaloo ku weydiin lahaa baasaboorka Soomaalida qof wata haddii shuruudihii looga baahnaa uu soo buuxiyo dawladda Canada visa ma u saaraysaa baasaboor Soomaaliyeed can you repeat haddii qofka baasaboor Soomaaliya uu wato oo uu dalbado wadankan inuu familigiisa soo booqdo ama hadduu ganacsado yahay baasaboorka Soomaalida dawladda Canada dalku gal ama visa ma saaraysaa taas xoogaa horta viisaha marka la siinayo qofka waa dawladdu waxay fiirisaa wax factors badan ay fiirinaysaa waxay fiirinaysaa waxa ka mid dalka oo qofka meeshuu ka imaado dalkiis dalkay waxay dhahayaan dalkaaneeto wadan oo stable miya miso waxay fiirinayaan situationka oo wadanka hadduu wadan oo dagaal ka socdo yahay waxaas laakiin taas bis kuma diidi karaan visa wadanka ka imaata bis kuma diidi karaan visa ma dhihi karaan visa waa ku diidnay sababta ku diidna waxa ka imaata Soomaaliya sidaas ma dhihi karaan hadday saas dhahaan appeal lagu sameyn karaa waxa la geyn karaa federal court-ka marka waxay fiirinayaan qofka lacag ma haystaa ma shaqaystaa hadduu imaado Canada visa waxay u siinaan 6 bilood moogta hadduu imaado Canada miisdabiri karaa 6daas bilood oo visa oo la siinayo
because waxaa loo ogol yahay inuu Canada joogo 6 bilood at a time moogta haddii xataa visa oo 3 sanadood la siiyo Canada wuxuu joogi karaa just 6 bilood bas marka waxay fiirinayaan qofkan ma shaqeeyaa wax ma leeyahay family ma leeyahay Soomaaliya wax oo family ah iyo alaab oo dhahaan asset ma leeyahay wadankaas sidaas waxay markaas fiirinayaan inuu markaas uu ku laabanayo wadankaas ay fiirinayaan miso wax kastuu soo qaatay wuxuu rabaa inuu Canada dego hadduu rabo inuu Canada dego oo wax kasta iibiyey oo wax ka soo qaatay markaas waxay dhahayaan qofkan wuxuu rabaa inuu Canada u imaado inuu dego markaaseeto ma siinayaan markaas visa waxay siinayaan haddii ay fiiriyaan wax kasta ee dhahayaan qofkan uu ku laabanayo wadankiisa marka 6 bilood ay dhamaato marka waa la siin dad oo Soomaaliya ka imaaday way adag tahay si ay u helaan viisaha sababta wadanka ay ka imaadeena waxay tahay wadan oo rabo inuu qof kasta inuu ka tago moogta laakiin wax oo la samayn karo waaye haddii oo wax kale haddii ay wax caddaynayso haddii tuso oo sheegayso qofkaanito qof shaqaysta waaye qof shaqale waaye qof oo markuu 6 bilood markay dhamaato uu wadankaas uu ka baxayo laakiin hadduu visa ku imaado waxyaalo kale uu samayn karaa programs kale oo immigrationka uu apply garayn karaa hadduu yahay temporary waxaa jirto la dhaho dual intent macnaheedu waxa waaye haddii aad temporary ahaan aad ku imaatay waa lagu ogol yahay inaad permanent resident aad dalbatid oo programska aad apply garaysid dual intent waaye allaha taas waxaa horta dhinaca oo immigrationka waxaa jirto dad badan oo iska sheegayo wax aan jirin wax aan jirin oo dhahayo waxaa ku imaan kartaa 10 maalmood ku imaan kartaa wadanka waxaaseeto wax jirto maahan marka waxaa jirto a lot of dad badan oo iska dhigayo immigration lawyer oo rabaan inay qiyaamaan dadka kale marka sida oo lagu ogaan karo waxa waaye dawladda government waxay leedahay website marka websitekaas waxaa ka fiirin kartaa dad kasta oo loo ogol yahay inuu immigration advice inuu dadka kala siiyo marka waxaa loo baahan yahay inay sameeyaan research inay ma ahan inay iska aaminaan qof kasta oo u sheego immigrationka waxa jiro moogtahay hadda waxaa noo imaada xafiiskeena qof oo loo ballan qaaday inuu imaado inii la siiyo permanent resident 3 qof oo waxay bixiyeen qofkiiba waxay bixiyeen $30,000 oo qof aan license ahayn qof aan aqoonin immigration website-ka ay aadeen wuxuu u ballan qaaday inuu siiyo permanent resident laakiin beenay ahayd $30,000 laga qaaday waxna la siina ma jirto taasna waa jirtaa marka inay waxa waaye research inay sameeyaan waaye inay ogaadaan waaye qofka ay rabaan qofka ay la hadlayaan wuxuu yahay inay ogaadaan waaye markay intayn iska siinin lacag dadka marka waxaaseeta waa iska jirtaa laakiin research inay sameeyaan waaye governmentka waxay leedahay website oo list of lawyers of consultants that are certified moogta marka taas way fiirin karaan marka laba xafiis hadda mid xafiis
my kan oo main one I joogo waxa way haddeertaan u guura waa St Clair waaye waa 598 St Clair Avenue West iyo midka kalena ay isticmaalo marmar ay isticmaalo waxa waaye waxay ku taalaa Western Lawrence 2 Rosemont Avenue 2 Rosemont Avenue unit 12 right at near Western Lawrence area.